waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa marka hore reer Galmudug guud ahaan iyo caasimadda gaar ahaan sida ay noo soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigii iyo dadkii ila socday runtii soo dhaweyn aad iyo aad u sareysa oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayno iyo sooriyo iyo intaba martigelin aad u sareysa runtii hadday dhinac kasta tahay aad iyo aad ayaana loo soo dhaweeyey maantana waxaanu ku soo sagootiyey xubinadii golaha shacabka ayadoo si weyn loo soo dhaweeyey runtii reer Galmudug guud ahaan uga mahadcelinayaa oo dadaalkaas runtii aan ku wada matalno gaar ahaan waxaan uga mahadcelinayaa dadka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo hadal oo yiri madaxweynihii hore Mareykanka Barack Hussein Obama markii loo doortay caucuskii ugu horeeyay markii uu tartamayay madaxweynenimada Iowa meel la yiraahdo ayuu tartankii ugu horeeyay caucuska waxa la yiraahdaa nidaamka Mareykanka oo saa ogtihiin marka hore waxa lagu soo baratamaa xisbiga dhexdiisa marka xisbiga ka soo baxda ticket waxa lagu siinayaa xisbiga hadda ku guuleysato in asaga u tartami kartid marka nin wuxuu ahaa madow abiis muslim yahay Kenya ka tagay marka dad badan waxay lahaayeen nin madaxweyne Mareykanka ma noqon kartid maxaa saaxiib isku lugoynaysaa marka uu tartamay oo caucuskii ugu horeeyay ee Democratska xisbiga uu ka tartamay oo ku guuleystay hadalkiisii wuxuu ku bilaabay kelmad aad loo diiwaan geliyo la yiraahdo they said this day will never come waxay dhaheen oo yiri maalintan ayada ah maalin dhacaysa maaha laakiin waa dhacday dad badan ayaa lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka ma soo qaadi karo Galmudug xoog maskax muruq iyo maalna waa geliyeen inaana soo qaadin waqti kasta iyo tamar kasta iyo dhaqaale kasta ay leeyihiinna waa ay ku bixiyeen arrintaas ayada ah dad badanna way aamineen sababtoo ah waxay aaminsanaayeen inay ayaga awoodii haystaan inay ayagu dhaqaalihii haystaan inay ayaga wax kasta oo dowladnimada ah ayaga haystaan ay aamineen markay aamineen waxay ku dhaqaaqeen in wixii la dhihi jiray guulwadayn ay galaan oo madaxda amaanaan oo meel kasta istaagaan oo maqaaxi kasta ay ka yiraahdaan adaa jiray joog si ay kursi u soo helaan taas ma dhicin cagsigeeda dhacday waxaana sababay madaxda iyo shacabka Galmudug ayaa sababay arrintaas ayada ah waxaa kaloo sababay dadkii aan ku matalayo kursiga oo sida senator saaxiibkay dhagdheer uu sheegay tanaasulay iyo gudoonkii doorashada iyo dadkii dhamaayo gartay inaan halgankii 5 sano aan lagu abaalmarinin dagaalkii ka yimid raggii aan isaynay inaysan guuleysanin halganka oo guuleysta gartayna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin maanta markay dhacday on doorashadii ilaa hadda waxaan u maleynayaa teleefankayga weli ma isticmaalin sababtoo ah fariimaha haddaan qiyaaso waxaan dhihi karaa minute kastaba 2 teleefan ayaa soo dhacaysa daqiiqad kasta oo kamid ah 2 teleefan ama fariin lii dhaafaa soo dhacaysa oo ka imaanaysa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka joogaan ma aha inaan xildhibaan noqday inay macno weyn u leedahay ayaga ma aha taas waxaa macno u leh wixii 5 sano anigii dadka kala midka u taagnayn oo ah waxay dadka Soomaaliyeed hiddo u leeyihiin taasoo ah qofka Soomaaliga wuxuu jecel yahay inuu xor yahay xornimada qofka Soomaaliga wuxuu siista ma laha qofka Soomaaliga in la dulaysto ma jecla oo ama dhaqaale ama mansab lagu dulaysto ma jecla qofka Soomaaliga ma jecla in la gumaysto ma jecla gobonimada aad ugu dhintaa qofka Soomaaliga ah inuu dimuqraadi yahay oo geed hoostiis ay waxooda ku dhameystaan oo tala laga dooday wax lagu gudoomiyo annaga waxaa leenahay dhaqan
ee ugaasyada iyo salaadiinta u weyihiin ugaasyada iyo salaadiinta iyo nabadoonnada iyo malaaqyada iyo qololba waxay qabtaba wax un bay guddoomiyaane ayuu go-aan ma gaaraan geedka markii lagu doodo oo dadku ay isqanciyaan markaasay ayaga guddoonka u sameeyaan dad saasaan ahayn soomaaliya ma aha dal ay dictaatoriyad ka suuroobi karto dadka Soomaaliyeed daafaha adduunka iga soo wacay ama fariimaha iga soo diray waa ka cudur daaranaya horta inaanan ka jawaabi karin teleefanadooda waxaan isleeyahay mas'uul Soomaali ah oo aan garanahay hadda inta joogta marka laga reebo qolada filla Soomaaliya waliba madaxtooyada prime ministerka kuma jiro laga bilaabo prime ministerka ilaa iyo qof kasta oo Soomaali ah way soo waceen way ii hambalyeeyeen macnaheedana maaha inay xildhibaannimo igu hambalyeeyeen waxa waaye inay guuleysatay cadaaladii dulmidiidkii dimuqraadiyadoontii iyo xorriyad u taagii inuu guuleystay ay dadka Soomaaliyeed oo dhan igu soo taaniyadeen dad ajnabi oo badan oo safiirada beesha caalamka midana way ka mid ahaayeen oo Soomaali kaliya kuma ekeyn aniga Cabdiraxmaan Cabshakuur in xilli ii doorto ma sugin shantii sano xildhibaanna ma ahayn wasiirna ma ahayn madaxweyne goboleedna ma ahayn meel masabna kuma magacawnayn anoo intaas ahayn ayaan dadka Soomaaliyeed ugu shaqaynayay mas'uuliyadaas oo ah inaan ka ilaalino dulmiga inaan ka ilaalino in lagu xadgudbo inaan ka ilaalino in kalitalisnimo dalka loo celiyo intaasaan ugu shaqaynaynay maanta haddaa reer galmudug tihiin oo iid mateen inaan xilkaas qaadana waa in kaga mahad celinayaa sidii si ka mug weynne insha Allah waa ku sii shaqay doonaa waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed maanta inay ogaadeen in mabda'a ku sugnaanshaha mowqifka aragtidaada inay caddahay inaadan qofna isku dulaynin inaadan qof mansab uga raadin ama xil inaad ammaanto ama aad isku dulayso inaysan waxba lagu helaynin Soomaali maanta waa u caddahay waana u wada jeedaan sababtoo ah kuwii intaas sameeyo dhan way khasaareen dadkii gobonnimada iyo mabda'a iyo ku dhintay inay mowqifkooda taagnaadaanna sanatarada saaxiibada ee qaar ka mid ah xildhibaanada jooga dadkaas ayaga ahna waa u jeedaan oo aan ka mid ahay way guuleysteen marka haddaad mabda' leedahay oo aad mowqif leedahay oo aad dadnimadaada ilaashato oo aad sharaftaada iyo karaamadaada ilaashato oo aad xil weyso xilku waxba maaha dadkaad macno ku dhex leedahay bulshadaad qalbigooda ku nooshahay waa kuwa maanta daafaha adduunka qabiil ay Soomaali ka yihiin anoo aqoonin nus dadka ka mid ah maba aqooninba teleefanadoodana xataa ama WhatsApp callka iga soo wacayeen maba aqooninba qaar badanna waan aqaan waxay igu soo wacayeen waxay ahayd in aan ahay qof ku nool damiirkooda iyo dadnimadooda qof ka turjumaya waxa ayaga ay rabaan ayaan ahaa saasaan u haystaa kuwa ilaa midka ahna saas waaye taariikh cusub ah qormaysa oo u qormaysa baarlamaanka soo socda labadiisa gole oo ah maxaa wax lagu dooranayaa ama maxaa wax lagu dhisayaa maxaa wax lagu dhisayaa nacamlayn guulwadayn iyo inaad tiraahdo ha layga raali noqdo aniga aan qanciyo aniga aan raali geliyo mise inaad mabda'aaga iyo caqligaaga iyo garaadkaaga iyo damiirkaaga iyo dadnimadaada waxay ku siiyaan inaad ku shaqayso maanta waxaan u malaynayaa 5 sano ka bacdi taariikhda Soomaaliya waa kala qortay labada meel midkaan aadayno dadka Soomaaliyeedna inay u caddahan u malaynayaan arrintaas ayaga ah waa maasan saaxiibkay senator Dhagdheer waa runtiis munaasabado badan oo aan runtii ama ahaato midii maaragtay madaxtinimo loo istaagayo ama midda maanta ah ama kuwa kale oo ay kamid tahay dulmigii 12 sano ku eedahay arrintii badda munaasabo badan oo u joogay runtii hawadana waxa inii sheegaa sir 2016 codka aniga wisiiyay laakiin sanadkan cariiri weyn aan lagu hayaa sanadkan cariiri weyn ayaa dhinacaas iga jiro sababtoo ah asaga reer galmudug oo iga sokaya meeshii soo gala hadeertaan
marka aad u mahadsan yahay senatarka runtii dadka xilkaska ah ee asagii asxaabta kale oo meesha jooga xildhibaan Mustaf iyo xildhibaan Cabdixakiin iyo rag kale oo u mahad celinaya runtii oo ayagana dhowr munaasabado aan ku kulanay runtii hadalka uu sheegay waa run doorashada noocay tahay iyo waxay tahay iyo see u dhacday waa ognahay laakiin dad isdiidan meel ay ka soo baxeen runtii waxaa ka jiro oo isku fikir ahayn oo isku aragti ahayn oo iska soo horjeeda oo qaar badbaadadii ciidankii badbaado qaran ay yihiin qaar midowga musharaxiinta ay yihiin qaar ay yihiin qoladii wax dhibaysa oo dulminaysa ay yihiin intaba meeshay ka soo wada baxeen runtii inkastoo aan jeclaan lahayn qolada wax dulminaysa in laka reebo laakiin hadday soo baxeen dhib ma laha waxaan rabaa inaan kor istaago cabashadii ka timid dadka aan sheegayo ee dulmanaa ee u dambeysay gabadhii hodan aheedee meeshaan ka hadashay ee ayada dulmigii maanta uu ku soo dhacay ee qoyan yahay runtii adaana matela wadajirna adaa matela cid kugu haysato ma laha weliba waxaa la ii sheegay inay madaxweynaha fadhiya xigtidiisa hoose ay tahay dulmiga cidday ka tabanaysana ay tahay waa sidaas sida dulmiga sidiisaba qabiil ma yaqaano cadaaladana sideedaba qabiil ma taqaano sababtoo ah dulmiga qof kastoo ku dhacaa ilaahay wuxuu yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ka cabsada uu yidhi fitnad aanan asiibaynin kuwa wax dulmiya oo keliya waa maasanid maasha allah maasanid guulayso soomaaliya guul cadaaladda adaan kaa rabnaa gabdhaha soomaaliyeed maanta ooyey cadaaladda adaan kaa rabnaa dulmiga sidiisaba qabiil iyo shaksi ma yaqaano qof kastoo ku dhaca waa aragteen hebel iyo hebel malihi aniga dad dulmigii nabadii noloshantii sano qayb ka ahaa ayagoo ka qaylinaya dulmigii in aragteena umalaynaya sababtoo dulmiga waaba saasba cadaaladana dadkay wada deeqdaa oo qabiil ma laha oo cadaaladda dadkay ku wada filan tahay taas inaan ogaano waaye oo aan u saciino inaan dulmigana iska diidno inaan cadaaladani aan ku dadaalno waxaan rabaa inaan waxyar dul istaago dalka abaaro aad u xunaa ka jira oo dhammaanteen ay doorashada naga mashquulisay runtii oo dadku ay aad u dhiban yihiin oo waxa noo gurmanaya haddeerta ajnabigii ay yihiin oo hadday yihiin kuwa maaragtay muslim iyo kuwaan muslimin intaba ay soo gurmanayaan runtii dadka soomaaliyeedna aysan ku baraarugsanayn dhibaatada abaarta ay leedahay macluusha sideedaba gadaalay ka soo baxdaa saas daraaddeed dhammaan dareenkaas inuu nagu wada jiro oo aan isku gurmano oo wixii tabar ah oo qof walba qofka kale walaalkiisa uu dheer yahay dadka soomaaliyeed dad isku gurma jiray ahaayeen runtii hadday biibaxa dhacdo hadday abaar dhacdo laakiin isbiritkii iyo ruuxdii isku gurmadkii iyo walaaltinimadii ehelnimada 5 sano lasoo dhaafaa la dilay runtii dadkii waa la kala dilay waa la paralyze gareeyay waxay ajnabiga dhahaan oo cadaawada laga dhex abuuray isnacayb iyo karaahiya la dhex dhigay dalkii laba safaa loo qeybiyey ama inaa ila jirto ama inaa iga jirto wax la yiraahdo dadkii dhan waa la iswada tuhmay kii xataa culumadii xataa gurma jirtay waa la tuhmay dadkii ganacsatada gurma jiray waa la tuhmay la furnaantii iyo nidaamaantii la isugu gurma jiray xataa meesha way ka baxday runtii dhibaato weyn waaye basharka waxaa la yihahdaa ama human beingka wuxuu ku nool yahay wax la yihahdo social capital oo ah ra-sumaal bulsho wax la yihahdo soo markii hadda hanti iyo ganacsi la sameynayo ra-sumaal wax la yihahdo laga bilaabaa soo maaha oo la isku darsadaa bulshada ra-sumaal ay leedahay isku dhimrinta iyo isku turidda iyo isku naxariisashada iyo isku damqashada iyo waxaasoo dhan waxay kamid yihiin ra-sumaalka bulshaday kamid yihiin ra-sumaalka bulsho soomaali waxay ku sarfayfto waaye annaga markuu dagaalka sokeeye naga dhacayay ruwandana waa ka dhacay ruwanda 1 milyan aa ku dhimatay waas qalqaleen laakiin dadka maadaama dad ehel ay yihiin dad maaragtay isku dhaha dad isdhaxla dad walaalo ah dad isku dhibriye ay yihiin islaamnimadaasaa badbaadisay hadda xataa annaga dowlad macnala dalkeena kama jirto intii xataa ay dowladda jirine social capitalkasa dad kala badbaadinayo oo hantidooda iyo noloshooda iyo ganacsigooda qiyamkaas oo bulsho ayaa kala badbaadinaya runtii oo kala hayay hadday tahay diinta hadday tahay dhaqanka hadday tahay ehelnimada waxaasaan ku noolayn adduunka ma dhacdo isteed la-aan in la noolaado maba la rumaysan kara bini aadana isteed la-aan nool oon soomaalida ahayn taas waxa keenayna waa waxaasaan ku noolayn aad iyo aadaan mar kale ugu mahad celinayaa madaxda iyo maamulka iyo waxgaradka
iyo dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee galmudug sida aad noo soo dhaweyseen insha allah si qurux badan noo sagootisaan aad iyo aadaan runtii inkugu faraxsannahay aan mabsuud inka nahay soomaaliya oo dhanna mabsuud inka tahay ogaada waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum